بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xogta xaq jirka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan toddobaadkii mar telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee Muqdisho isla markaana aad ka dhageysataan radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa xabsiyada qarsoodiga ah ee Al-Shabaab su'aalo badan oo ku saabsan xabsiyada ayaa barnaamijka intuu socdo ku daawan doontaan waa intee amba nooc ay u qaybsan yihiin xabsiyada Al-Shabaab waxay naga jawaabi doono mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo xukunsana ah sidoo kale Al-Shabaab dhexdooda waa la isjaasuusaa oo xabsigaas gaarka ah ayaa lagu ciqaabaa cid kasta oo loo arko in ay ka soo horjeeto jiritaanka ururka argagixisada ee Al-Shabaab xabsiyadan waxaa la aasaasay 2008 dadkii ugu horeeyay ee xabsigan loo taxaabo waxaa ka mid ahaa kuwa badan oo xilligii dagaalada bilowga ahaa ee dowladii ku meel gaarka lagu jiray dib uga noqday cabsi darteed waana kuwii ugu horeeyay lagu bilaabay xilligaasi amniga waxa madax ka ahaa waxay ugu yeeraan Farxaan Maxamed Guure dadkii ugu horeeyay ee xabsiyadan qarsoodiga ah lagu ciqaabo laguna dilo waxaa ka mid ahaa Faadumo Xaajow iyo koox la shaqeynaysay gobolka Shabeellada Hoose kuwa badan oo soo galooti ah ama ajaanib ah ayaa iyagana lagu ciqaabay xabsiyadan barnaamijku waxa ay kala qayb geli doono mid ka mid ah ajaanibtaasi oo u xirnaa Al-Shabaab 2013 ilaa 2016 ibarkoostiyaan hadda marti u ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa sidoo kale barnaamijka inta aan diiradda saareyno arrimaha la xiriira xabsiyada Al-Shabaab aad ku daawan doontaan awoodda cidda iska leh kooxdan loogu yeero amni wiqaa'i ah ama kooxdan u qaabaysan jaasuuska iyo tacdiibka xitaa way ka awood badan tahay mararka qaar sidee qofka loo geeyaa feelkiisa waxa ay ugu yeeraan ama ay ugu xukuntamaan xaggooda marka loo fiiriyo ururka argagixisada Al-Shabaab barnaamijka ay qayb ka tahay oo aad ku dhageysan doontaan dad badan oo ka yimid ama wiilal ka yimid Najdi iyo Xijaaz ayaa ka mid ah dadka halkan lagu tacdiibiyay nolosha ku waayay kuwa badan oo ka mid ah nolosha ayaa loo aqoonsaday 7 sano ilaa 8 sano markii ugu dambeysay ee laga saaray ururka argagixisada Al-Shabaab Baraawe ilaa xilligaasi dad ayaa u xiran kuwa kalena meel ay jaan iyo cirib dhigaan nolosha lama hayo barnaamijka ayaan arrimahaasi oo dhan ku faaqidi doonaa oo laba ka mid ah argagixisada Al-Shabaab oo iyana midna xukunsana yahay midna xukun lagu fuliyay ayaa barnaamijka qayb ka ah waxa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah laba isu soo dhiibo oo mid ka mid ah soo galooti ama ajnabi u yahay wixii ka dambeeyay 2015 waxay u xubsiibteen kooxdani koox ka dhex shaqeyso ururka gaar ahaan kuwa iyaga ka mid ah ee u janjeerayna ku biiraan ururka argagixisada ah ee Daacish gaar ahaan kooxda weli u hanqal taagaysa inay ku biiraan kooxda uu hogaamiyo Cabdiqaadir Muumin ee ku dhuumaaleysanaysa buuraha bari ee Soomaaliya arrimahaasi oo dhan ayaan toddobaadkan barnaamijka ku faaqidi doonaa Farxaan Maxamuud Xasan oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Quule Carabiya Faysal ayaa inooga jawaabaya noocyada xabsi ee Al-Shabaab leeyihiin xabsiyaasha waa farbadan xabsi dhexe xabsi amniyaad xabsi jeesh mid kasta oo ka mid ah xabsiyadan waxa uu qabtaa howl uusan suuraysan karin qof dareen leh tuun u jira si ka baxsan bini'aadanimada ay harta loo dhaqmaa qofka waa la dirdilaa koronta lagu qabanaa cidiyaha biinsa loogu qabanaa xaniyaha sidoo kale inta qof bini'aadan ka xanuunsada ayaa ka qabsanaa waxaa waaye musqusha harta kool waa dhibaa waxaa waaye kuleel 4 saac uu xirnaana si cabiida habeenka la baxaa xilliga iyo qof qawow biyaha yihiin barafka yihiin qof xabsi ku jiro oo dhibaataysan in islaam biyaha lagu shubo la balbalaa wala garaaca qofka asoo dambi lahayn iyo waxa waaye dambi kale iska sheegana midka u gaarka kooxda qaraxyada iyo dilalka isugu yeera amniyaadka waa kan ugu sharta badan xagga ciqaabta xabsiga militariga wuxuu qabtaa nin kasta oo qori wada oo dambi leh dambi ay nooc kasta leh horta ku qabanaa markii dambigaas uu waxa waaye uu dambi uu noqdo wax gacan saar leh dawladda uu noqdo
waxaa loo gudbiyaa xabsiga amniga loo gudbiyaa sida qofkan loo tacdiibin lahay dembi oo ama asaga u lahayn ama uu leeyahay kor loogu soo saari lahay ayaa waxaa waaye loo gudbiyaa xabsiga labaad nin al-shabaab khilaafka ka dhaliyey ama amiir isku dhacan oo la xukumay ayaa la geeyaa waa xabsikaas xabsi dhexal laha dad ayaa u dhaxeeya nolol iyo geeri oo weli weydiisanaya argagixisada mar uu nolosha in la dhaafiyo waana kuwii xirnaa 7 sane iyo 8 sane ee lasoo dhaafay tan iyo markii al-shabaab laga saaray magaalada xeebta ah ee Baraawe dhowrkoo sano rag hadda waxaa jira la qabtay xilliga baar laga baxay Baraawe laga soo baxay camal diinsoor rag 7 sano 8 sano hadda xiran ayaa jira oo hadda nolol iyo geerina meel lagu sheegin qof inay ehelka haddaa war qofkaana garanayo cid kuu furays iyo cid kuu xirays ma jira dhibka dhammaanana waxaa waaye ikhlaas xukunsana carab oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida cimrigaha ku furto xukun ah kula riday beled xaawo ay nooga sheekeeyay inta uu marqaatiga ka yahay waxaan kaloo nin kaloo la Ismaaciil waxaa lagu haystay al-shabaab ahaan jiri al-shabaab ku baxay xamar iska tagay xamar soo iska socdo kismaadana iska socdo ayaa la iska qabsaday dawladda soo dirsatay Allah hadii dawladda soo dirsatay kismaa u gudbi lahayd soo meeshii al-shabaab joogaan soo ma hanjiri walaa waxaa xasuustaa habeenaha kamid ah anoo mas'uul baan u dhahay ana waan dhimaa adduunka waan dhaafaa laakiin qiyaamo waxaa waaye aan kula baahnaa dambi anaan leenaan sheegtaan u dhahay waxaan u sheegtay jirkeyga inuu ii nabad gala bis dilkan bisha lisina waa waxaa waaye ana Allah subxaanahu wa tacaala waxaan kala helin ayaa waxaa waaye aan leenahay waxaan kaloo xasuustaa nin kale asna la dhahaa ii sheegeen macnaha la dhahaa oo ragna ka tirsan jiray cumar uu garanayo asna oo dembi u lahayn kor inta laga saaray la garaacay si lagu dili Ethiopia wuxuu ahay jaajus waxay lahayn asna wuxuu ka ahay barigu ka ahay waxaan kaloo ka xasuustaa nin la dhahaa asna ii sheegay maxamed la dhahaa oo lagu dili ii sheegeen yaaq baraaw lagu dili oo la asna dawladdu gacansaar la lahaay oo bariga ka asna oo anaba taas hubo waxaan kaaga sheekeynaa wax la yiri maaha waxaana ii sheegeen u taagnay nadarta u taagnay waay faysalkan ka mid ahaa furahayaashii xabsiyada al-shabaab ayaa sidoo kale u soo joogay qof macduur ah oo ay al-shabaab u dileen basaasnimo waxaa kaloo ka mid ah nin oo nusqaansan oo mahadla ka taa saaxiibkii Cumar uu garanayo nusqaansan dhanka aqli ahaan dhanka maskaxaan nusqaansan waxaa loo haystay bangaraaf uu shaqeynay Mareykanka uu shaqeynay meel shariic islaamka nin nusqaan aqligiisii ama maskaxiisii lagu dilay ii sheegeen waa nin maanta EFC ka taa qaabka loo shubto ama qof ka taa loola hadla ka taa nadaafadda jirkiisa qof lagu waxdan aan tirin kara ma laha xabsigan waa meesha loogu talagalay qofka ka midka ah al-shabaab ee looga shakiyo in uu bedeli karo riyooyinka cadaawadda ah ee ay ku fikiraan horjoogayaasha nolosha ka dhacay ee al-shabaab waana horjoogayaasha xitaa iyaga isku dirsada basaasiin ka dhex shaqaysa xasan aadan isxaaq oo magaciisa afgarashadu yahay cabdinaasir jeeri ayaa inooga sheekeynaya kaalinta uu ku lahaa majaajilo lagu dhalan rogaya fartameeyo uu isaga ka tirsanaa looguna magac sheegay inay tahay dowro waxa uu ahaa basaas uu dirsaday horjooga xasan cali dhoore dabagal oo ahaa macallimiintii iyo raggii oo dowladda qaadanay in aan wixii ay la soo sheekeynayo wixii macallimiinta mugada ay wixii raggii ah si aan ugu qaybto oo u dabagalo dowladda dabagalay dabagalmana oo qaatay Khalid oo isaga barayay xirfadda dhagarta ayuu soo shirqoolay jeeri marka dowladda marka si dhamaan doonto oo dhamaad kala joogo ayaa marka macallin Khalid Allah macallimiinta macallin kamid ah ayaa raggii marka habad oo la shuuranay marka intii shuurada aan bilaamanin waxa yiri raggii hal mar soo hor istaagay waa la jamciyay oo ku dhex marka qof walba bisaan meel u dirsan doonaa ee la sheegin marka qof walba meesha loo diro ee la sheegin qof walba qofka kale uu sheegin meesha loo diro amni way aan sarweey uu sheegin si u socotay marka ka baad marka ka fadhiya shay raggii u galay barnaamijkii si u socotay baashaan ay soo gaartay marka macallinkii waa ii sheekeeyay
marka xaaladaas waxaa iga sheekeeyay khilaafka iyaga ku dhex jiray waxay u dhahayeen waxa socdo oo mujaahidiinta ka dhexaysa shabaabta ka dhexaysa dhexdooda ma la socotaa u dhahay may lama socdin yaa yidhi inkastoo ani markaasaan inaan la socday dhaqdhaqaagooda marka waxba kale ma socotid miya may wixii markii mansuur afgeemada laga qaadaa iyo dhaxadaan iyo mansuur iyo zubeer wax ka dhexeey iyo dadkaas dhan ma aqaanay hada khilaafka iska daayay ayaa dama garanayo marka wixii waxa iga sheekay khilaafka ka warqabtid waxa ka dhaxay wixii oo la ka dhaxay lama socotid miya may horna markaas wadina barnaamij weyn jiro dadkii way kala bixeen madaxda waa kala bixeen dhaxad waxay yiraahdeen dalkaani qorsheysan oo amniyaad sameeyay iyo maxkamad laanta la dilay iyo dadkaani oo qaraxa isqarxinay iyo banaana dad yiraahdeen oo dadna waxay dhaheen wax dadka wax bartaano dadka qofka intaan jihaadin ka hor waxba bartaa markaas bacdi jihaad kara habarta horta markaas jihaad kara dad dhahay dadna waxay yiraahdeen qaraxa oo banaan yahay amnimaadka oo dalka oo banaan yahay halkaani ii sheekay qaybta aad ku dirto marka maxay aaminsaneyd labada khibar inay banaan tahay qaraxyadii iyo dalkii inay banaan tahay aaminsanayeen markii macalinka waxay u sheegay marka waxa ahaan yirinayo labadan qiibada tay raacsan leeyahay dad qof iga cal roon oo macalin dhan oo meesha galaan gal fiican leh xagee u dar leeyahay waxay ii sheegayeen markaas ay wadhanayeen wada baasho kala baxday halkaani inaad iska raacday ayaa masaxda ku jirto wax baratid dadkan la dilay iska dhaaf qaraxyadaani oo wala galay dadka banaan yiri oo ulmada inaad raacdid ayaa ku fiican ay wadhay marka macalinka aniga markaas ma dhihin waxa kale ma dhihin waa yahay yiri waan ka soo qaatay barnaamijkan ka soo qaatay dowri marka la soo gabagabay ka bacdi waxaan u soo laabtay ninkii soo darsaday oo Hasan Ali Dore aan u soo laabtay ay imid barnaamijka markaa u sharaxay taas way ninkaas dadka kale hadda wax xooga kama soo helin laakiin waxaan yiri ninkaas oo macalin khalidka ayaan barnaamijkaas korbarigi dhan halaala u kulmay anina way kulmay barnaamijkaas ii sheegay ragdon inuu wada sheegayaan falayaan yiri nasiib wanaag dhowr horjoogihii jeeri iyo Khalid intaba Allah waa uu ka qariyay shartooda dadka iyo dalka oo waxay jiraan meel ay ka furan tahay xisaab aan la isaga been sheegi karin waana xagga Allah jeeri oo isaga wada ka ahaa gaarigii labaad ee ku qarxay dan wadaagaha intii ay ciidamada amniga hubinayeen baaristiisa maalintii xasuuqa shacabka ee Zobe 14 Oktoobar 2017 ayaa xukun dil ah ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida lagula fuliyay fagaaraha cadaaladda iskool booliisiya sanad kadib 14 Oktoobar jeeri waxa uu sidoo kale ahaa hagaha iyo maskaxda weerarkii 14 Oktoobar ay dadka shacabka ay ku baabeen Maxamed Fatika oo caan ku ahaa Zubayr al-Muhaajir waayihiisa al-shabaab waxa uu u xirnaa argagixisada intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2016 Ifarkostiyaankan Soomaaliya soo galay xilligii maxkamadaha waxa uu ahaa farsamayaqaankii daabacay muuqaalkii ugu horeeyay ee al-shabaab ku baahayso internetka iyadoo isticmaalaysa magaca Al-Kataib joogitaankiisa al-shabaab waxa uu ka gaaray hogaaminta guddi farsamo oo xalliya khilaaf al-shabaab ka dhex jiray gaar ahaan dhinacyo kala taabacsanaa gudanihii dhintay iyo Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur laakiin guddigaasi waxa uu u xoobsiibtay guddi maxkamadeed oo aan la fulin soo jeedintiisii iyo awaamirtiisa intaba Zubayr al-Muhaajir waxaa la xiray galab maqrib ah oo nolosha loo aqoonsaday Afgaan iyo macallin Burhaan gudaha Barawe waxaana xilligaasi loo sheegay inuu xukuman yahay waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee Twitterka ku shaaciyay khilaaf al-shabaab ka dhex jiray gaar ahaan fariin uu u diray al-Qaacida Afgaan oo ciwaankeedu ahayd ana nadiirul curyaan Zubayr al-Muhaajir oo dabayaaqadii Oktoobar 2019 isu soo dhiibay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaan weydiiyay su'aalo ay ka mid tahay maxaa kuugu yaab badnaa intii aad joogtay Soomaaliya laakiin waxa uu ii sheegay waxa maanta aan idinla wadaagayo Soomaaliya markaa laga soo bilaabo 2006 ilaa maanta xilligan aad joogto marka laga tagay hadda inta yar ee dawladda martida u tahay sax
intii kale ee waqtigii shabaabka la joogay qof haddii uu ku weydiiyo maxaa cajiib kula ahaa oo Soomaaliya kusoo aragtay maxaa ku jawaabaya Soomaali ama shabaab aan ka arkay shabaab yes shabaab Soomaali haye waxyaabaha cajiibka oo aan ka hadlay dhinaca sharciga iyo qaraxyadii iyo dadka la iska dilaya iyo takfiirintooda iyo waxaas laakiin waxyaaba kale oo indhahayga ku arkay gaar ahaan xabsiga markaan ku jiray waa tacdiibka xabsiga waxaa hal qolaan marmaran iskula xirnaa dhowr niman ah oo dhalinyaro ah oo ay ku tuhmeen waxyaaba oo basaasnimo iyo waxaas gaar ahaan waxaa ka mid ahaa nin oo dhalinyaro oo Cabdullaahi Geeli la dhihi jiray markaa xabsiga markaan ka soo baxay waa maqlay inay toogteen waxay ku eedeeyeen howlgalka oo Faransiiska ay ku qaadeen Buulamareer ay ku eedeeyeen bas anigoo qolkayga ku jiro waa laga geliyey wiilkan mas ogeen mar hore bas waa sheekaysan jirnay iyo waxaas waan arkay maalin walba habeen walba meel duur ah ay la tegi jireen ay tacdiibin jireen asagoo tacbaan ah la celin jiray ma fahantay bas waa la hadli jiray waa la socday yani xaaladiis yani wixii yani lagu tuhmay iyo sidii ay tahay xaqiiqada sidii ay tahay waa sheekaysanay yani waxyaabo badan uu ii sheegay maana marka waxaan ogaaday nimanka in wax been ah inay ku rideen bes ay rabaan ma fahantay marka tacdiibka way sii wadeen markasta waan ku dhiirigelin jiray inuu adkaysto inuusan qiranin wax dambiya hadduusan gelin ma fahantay hadduu sameeyo ha qirto asay u tahay laakiin hadduusan sameynin inuusan qiranin wax dambi uusan gelin ma fahantay bas uu adkaystay laakiin ugu dambeyntii uu adkaysan waayey waa laga saaray meeshaas qolkeygii waxaa umaleynaa way ogaadeen inaa sheegaysanayna iyo waxaas way ogaadeen way ka saareen qolka meel kale ay geeyeen bas markaa xabsigaan ka soo baxay waa maqlay inay dileen inay ku tuhmeen yani arrintaasna aniga wixii aan ka ogahay oo wiilka aan ka maqlay inuu bari ka yahay ay fahantay asiga keliya maaha dad badan oo ilaa 3 ama 4 qof saas amal aan ku arkay xabsiga jaasuusnimo iyo falal oo dambiyeed ay ku tuhmeen ay tacdiibiyeen ayagoo tacbaan ah oo dhiig oo meel kasta leh ay ku celin jireen oo qolka marka nin kale oo aan xasuusanahay Xasan Leezi la dhihi jiray wuxuu mas'uul ka ahaa hay'ad oo gedo ka shaqeynaya Xasan Leezi la dhihi jiray marka ninkan ay ku tuhmeen in Kenya inuu jaasuusayo iyo waxaas oo dhan iyo waxaas asagana waa la tacdiibiyay iyo niman kale kaasaan arkay macnaha waxay sheegeen yani qaabka ay marayaan qaabka xarakada ay wax ku xukumayaan gaar ahaan waxyaaba ku saabsan maxaabiistan noocana way tacdiibinayaan tacdiib kadib markay adkaysan waayeen waa inay qiritaan marka ma fahantay khiyaar kale ma lahan marka way qiranayaan markay qirtaan way ka joojinayaan tacdiibka way daaweynayaan cunto fiican ay siinayaan waxay diyaarinayaan inuu caafimaado inuu wax yar oo caafimaad inuu ceshado kadib filim ay ka duubayaan ma fahantay film asoo qiran ah ay ka duubayaan markuu cunto fiican la siiyo oo la daaweeyo iyo ma fahantay kadib camera loo keena kadib uu cameraga hortiis wuxuu sheegay ay falkaas ana sameeyay u qirana wixii ay rabaan asoo ku qasban aan khiyaar lahayn aan maxkamad la geynin nimanka tacdiibinaya ayaga ka duubayaan ma fahantay kaas kadib filimkaas iyo videogaas waxaa la geynaa qaadiga guud iyo amiirka xarakada aa la geynaa videogaas way fiirinayaan videogaas kadib xukunkooda ay ku saleynayaan videogaas
وقرشه أي فهمتي لكن محكمة لما سارين واحد قاعدة واحد وكويدية لما أركو أي فهمتي مركا فيديو جاس كدي مركي فيريين بس أي ولقوا حكمة دلت وقشال لقوا حكمة جاسوس واي مرتد واي وحاسي ده يعني كدي فقارة يكين عيان قاعدة أو وح ميل أو وح كأخنا ماشاس وح لما سعنين أصلا ما فهمتي وهو لو ميري واي أنت شيك أنت شيك أنت شيك وأنت فحقيقة حكم كاس وح معناه عجيب أركي لأن بنانك شيء عيان يعني عدالة عن ودنا شريعة عن ودنا وهسودن وخلاف سنتهي شريعة وفهمتي شريعة ما جرتو إن قف إن أكون حكمتي عظم محكمة ساري أصلا ما فهمتي مركا كات يقول إلى ويناتي ما فهمتي مركا معناها تعذيب وحنا نقول سمينا نقول شيء مرمى شيء يعني أقول يكون دليان مرمر عجية حتى ويكسيبها يعني وتعذيب ودرانها تعذيب عادو درانها maxamed fatiika ayaa xaafadaha London ay Soomaalida ka degan tahay ka soo sagootiyay Cabduqaadir Muumin oo hadda horjooga wakiil uga ah Daacish Soomaaliya iyo Takar waxaana markii Soomaaliya uu yimid la wareegay Bashiir Qoorgaab iyo Xasan Turki oo labadaba dhintay Saciid Cabdulla Dilib oo isaga ka mid ahaa Al-Shabaab intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2018 kana mid ah dadka ka haray fikradaha xagjirka ah ayaa ila wadaagayo xog la xiriirta xabsiyada qarsoon ee Al-Shabaab dadku ku cadaabaan وقائق ما تقانا وأمن داخلي وحكومة مقنية حركة الحديدة حركة الحديدة ما تنو حلق الرادية ما تقانا يقول لي جواسيس رادين إنه قف كي رباني نقبتن حقيقة لأن هذا سأجيد ومحاك وإرادة أيقو مارتي كلها يلسو لكينا يحرب الحدث ما تقانا لدي أنت وضع بضن وحمارتي شيك شقا كله كيسس كاسي أدريان معه Dilib wuxuu ka mid ahaa faracyada warbaahinta iyo amniyaadka oo uu ka gaaray darajada bare ama macallin waa sida dumarka Al-Shabaab ugu jira xabsiyada bal hay noo sharaxo Saciid Cabdulla Dilib مثلا حبسيده كيديس وحران اي وحران مارتي شيء جاسوسنimo gabdhihi waxa ma taqaan xabsiga waxa mushrif ka ah rag ragiya maxaan ku yiraahdaa ay shay gabadhi tacdiibinay ragiya isjawaabay marka islaamnimo sheeganayna sharciga islaamka meesha kaga jirto inuu nin rag maartay gabar istijawaabo oo xabsiga isaga mas'uul ka noqdo dawladda gabdhuhu soo qabataa lagu eedeeyay shaabnimo laakiin rag lama tacaamulo xabsiga ku jirto gabadha wartiisu agteedan rag mista ay jiro baari waxa uu noqotay gabar kiiskeena wala fudeeya ayta maartay shay meesha ku jira gacan dawladda ku jira kiis badan oo gabdhaha arkay wala fudeyn jiray inta badan nin ragna lama tacaamulo jiro galaalish ala tacaamulo inta meesha ku jireen masabidashada qofka nolosha loo dhaafiyay Al-Shabaab dhexdooda waa astaan kale oo aysan ka zuulin sida ina geele oo loo dilay dilkii gudane waxa aad u la yaabay ninka leeyahay gudane uu nambarkiisa raadiyay oo maxaa wiilasha la socday gudane yarka ma taqaan ay u dileen waxay leeyihiin way goorxin xataa waxay leeyihiin gudane wiilasha la socday nambaradoodu ninkan raadiyo helay wiilasha gudane la socday ninka ma yaqaan aqoon buu malaha wuxuu nambarkooda raadiyaa ma yaqaan waxa kaloo la yaabay nin la yiraahdo maxamed geele Cabdulle maxamed geele Cabdulle nin iska qabliyo oo maartay shay oo xamiyadii ma taqaan qabiilka ay ku weynta laakiin waxaasi waxay leeyihiin maartay $4,000 waxaasi ma taqaan ay shay carabi $4,000 maartay shay aniga waa qana meeshu ka keen aadan kaas waa qana cidiisa qana $4,000 dhul ku lahaa maartay shay wali cidiisa kala dhex weelis kala dhaxay oo xoogati ku yaal suuq xoolaha saas ma taqaan dhulku ugu gatay carabigana wuxuu baahan ayaga la shaqeeyo عربي متقان إليه مليون متقان كا أبلا قاعد لعقته إنه هينجري لعقته شباب متقان أمريكا وهينجري دور بقول كنا هذا حمر وجوجا كل يوم ولا شقي ما قال لك حمر كوجا العقود وهينجري طلبات عربي بحيتان كل حد البنجر لبكون إياه كويتون لبيتون مروا دي متقان أمريكا ويدي سنجر مروا بإنه فصح ولو ديدنا تكلا تسدحاد
markuu baxay carabi wuxuu hayo uu wareejiyey gawaariyuu hayo wuxuu hayo lacag intaba uu wareejiyey waxaa taas ka sii daran wuxuu soo maray markuu baxay maaragtay shabaabkii dhex maray ninkan hadduu nin jaasuus yahay oo maaragtay sheegay erboorkiiba ka bixi karaa maaragtay qolyaan la shaqeey maxaa ku kalif mataa inuu shabaabkii soo dhex maray haddana weliba khatarta maaragtay eleeda ogyahay marka saasoo kale rag noocaasoo kale waxaan laysaga dhijaatay mara kolley rag mataqaanaa meesha ragaa dhex fadhiyo shaqaysanayo kadibna nimankaana waxaa laga dhigtaa kabshil fidaa scapegoat guud ahaan barnaamijkii xogta xag jirka oo aan idila socodsiinaya anoo cabdiqaadir ciise intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa kan iyo barnaamij caynkan oo kale intaynu toddobaadka dambe ku kulmeynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu